xerada gaaska Dhaankaroone oo ku taala duleedka degmada Galinsoor ee gobolka Galgaduud isla markaana fariisin u ah guutada 13aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qaybtooda 12aad ayaa maanta lagu soo bandhigay laba askari oo ka tirsan ciidanka militariga kuwaas oo ku eedeysan inay 13kii bishan xilli habeen ah duleedka degmada Galinsoor ku dileen askari kale oo ka tirsanaa ciidanka xoogga dalka qaybtooda 12aad dilkaas kadib ayaa ciidanka 12aad howlgal ballaaran oo ay sameeyeen waxay labadan eedeysane ka soo qabteen magaalada Gaalkacyo sida uu sheegay taliyaha guutada 13aad ee qaybta 12aad gaashaanle dhexe Nuur Xirsi Wardheere 13kii bishii 8aad 2018 waxaa dhintay dable xoogga dalka Soomaaliyeed ka tirsan qaybta 12aad Cabdullaahi Daahir Ciise Shiiqow ina Safiyo Cali Axmed oo ka tirsanaa ururka isku dhafka oo xerada hadda aan joogno oo gaaska Dhaankaroone oo ay ku eedeysan yihiin laba askari inay ninka dileen askariga ah kuna dileen saacadu markay ahayd 9kii iyo barkii aroornimo goolada Galinsoor iyo ka dhaxayda Beendhaarte ayagoo ay la socdaan baawur candhameyd ah oo ari waday baawurkiina meeshii ku qalibmay eedeysanayaal Cabdirasaaq Tahliil Dhalac ina Faadumo Cali Gurey labo Burhaan Daahir Maxamed Cali ina Caanood Aadan Cabdulle eedeysanayaasha oo ku hadda meesha fadhiya ah waxaa laga soo qabtay Soono Gaalkacyo amaanduulaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qaybtooda 12aad gaashaanle sare Cabdikariim Warsame Maxamed ayaa sheegay in eedeysanayaashan la horkeeni doono sharciga waxa weeye nimankan gacan ku dhiglayaasha oo labadan askari ah oo ku dilay askarigaas xoogga dalka Soomaaliyeed ka tirsan oo qaybta 12aad guutada 13aad ka tirsan ay si xaq darra ugu dileen magaalada Galinsoor agteeda ayagoo saarnaa gaari mataqaanaa candhameydle ah oo ay ka soo raaceen magaalada Cadaado isla markaa gaariga ay la soo raaceen gaariga asagoo shaaran shirkiisana ay isku dileen saddex askari ay gaariga shirkiisa soo fuuleen markay soo fuuleen oo saaxiibtinimo iyo walaaltinimo u soo wada fuuleen ayay gaariga dhexdiisii waxay kala dhaceen xabad asoo gaariga shirkiisu jira inkastoo khasaare badan gaarigii uu qallimay oo xoolo badan oo sitay xoolihii baaba'een qofka bini'aadamka hadduu wax geysto wuxuu geysto oo dilo mas'uuliyaddeeda asaa qaadanaya sharcigan la horgeynay waxaan kale u sheegayaa askarta hadda nala joogta iyo kuwa naga maqan iyo kuwa shacabka cid walba waxaan u sheegaynaa ciddii isku dayda askari xoogga dalka Soomaaliyeed ka tirsan in ay wax u geystaan oo dhibaato u geystaan ama dil ha ahaado ama dhaawac ha ahaado sidaas loo soo qabanaya sharcigan la marinayo Cabdi Xasan Awowe warbaahinta qaranka Soomaaliyeed Cadaado.